maanta ayaa waxa aan iska casilay xubinnimadii xisbiga kulmiye anigoo ah xildhibaan mahdi maxamed xaashi waxaana ku biiray xisbiga laydhiisu soo ifayso ee waddani markaan arkay markaan eegay markaan dhinac kastaba u kuur galay markaan ilaa halka ugu sarraysa ilaa halka ugu hoosaysa aan kulmiye dhex maray anigoo ahaa xubnaha ugu firfircoon ama xildhibaanada ugu firfircoon xisbiga kulmiye waxaan dan mooday oon gartay aniga iyo beeshayduba anigoo beeshayda hoggaaminaya oo xildhibaankii ay soo doorteen beeshaydu ah iyo ree gebiliba waxaanan aad u filayaa markaan iminka gebila ku laabto inay waxyaalo fara badan ay gebila iska beddeli doonaan oo ay calanka kulmiye aad u babban doono taas anaa ballan qaadaya xildhibaan mahdi maxamed xashaan calanka waddani oo aad uga dul babban doono gebile taageerayaal aad u fara badanna aan ku soo biirin doono waxaan leenahay daba xisbiga kulmiye nin iyo taagtii iyo nin iyo timirtii waa inoo iyo gebiiley qodobka kale sayid maxamed cabdilla xasan baa wuxuu yidhi bal adiguba caqli baad leedahay carar maxaa dhaama war kulmiye haddii laga wada yaacay maxay dhex dhigaya nacnac baan arkayaabe nacnac ayaa ma arkayaaye maxaa kulmiye isii dhigay marka meel kastaba eegay waxaan leeyahay intii magaca kulmiye ku shaqaysanaysay intii isku ururaysay intii qabacda ka dhex raadinaysay intii beelaha ka dhex urursanaysay intii isku raacday beel ahaan ee maanta xisbiga kulmiye isku xeertay waxaan leenahay annagu haddaan ahay xildhibaankii gobolka gebile xildhibaan mahdi maxamed xaashi waan ka baxay cid kasta oo kulmiye ka soo jeeday waxaan leeyahay waa inoo iyo gebiiley waxaad ka keentaan iyo waxaannu ka keenno wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu rabbilcaalamiin wasala allahuma calaa sayidina mawlana maxamed waxaa maanta halkan ka dhacay ku dhawaaqista xildhibaan mahdi uu ku dhawaaqay inuu ka tegey xisbiga cadeeddiisu sii dhacayso uuna u soo diga rogtay xisbiga cadeeddiisu soo baxayso waxaannu leenahay mahdi ku soo dhowow gacmo furan xisbi aan lagaa lahayn xisbi aad adigu hormood ka noqon karto xisbi adigiyo beeshaaduba aad waxtar badan ku darsan doontaan lagaama leh xisbiga waannu ku soo dhowaynaynaa mahdi dhammaan inta ku maqan riyada iyo dhalada aan meel gaadhayn ee aynu ognahay maanta in wakhtigu kaga lumayana waxaannu leenahay soo raaca xildhibaan nacnac oo soo raaca xildhibaan mahdi oo soo raaca inta caqliga leh oo soo dhowaada xisbi laydinka jecel yahay xisbi laydinku heelan yahay xisbi mar walba dantiinna ka shaqayn doona aad ka dhex arki doontaan waxaad leedihiin oo aad leedihiin fikirkiinna oo aad leedihiin magaciinna oo aad leedihiin maskaxdiinna oo aan laydinka lahayn oo aan laydinka sheegan doonin xisbi aan dadka kala qabyaaladeen xisbi la wada leeyahay weeye mahdi iyo inta timidba waannu soo dhowaynaynaa aad baannu ugu soo dhowaynaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaatu wasalaamu calaa rasuulillah anigoo afhayeenka gobolka gebiley ee xisbiga waddani gaar ahaan dhallinyarta waxaan soo dhowaynaynaa xildhibaanada xildhibaanka ugu firfircoon gobolka gebiley xildhibaanka keliya maanta muujiyey isbeddelka maanta reer gebiley ay doonayaan ee ah inay waddani maanta guulaysto waan soo dhowaynaynaa waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan waxaan ku soo dhowaynaynaa isbeddelka maanta gebiley ka jira inuu noqdo isbeddelka ummadda somalilan oo dhan maanta mideeya ummadda somalilan oo dhan maanta ka dhiga ummad keliya oo wax wada doonta ummaddaasoo doonaysa codka shacabka musharaxay wataan shacabku ay dooranayaan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaan leenahay mahdi maxamed xaashi xildhibaanada gobolka gebiley soo dhowow ku soo dhowow xisbigaagii ku soo dhowow xisbiga waddani asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anigoo ka mida mas-uuliyiinta xisbiga waddaniya gobolka gebiley waxaannu soo dhowaynaynaa xildhibaan mahdi maxamed xaashi oo ka mida xildhibaanada ugu firfircoon gobolka gebiley waa mashiinkii keliya aha ee dhaqaajinayay gobolka gebiley waa xildhibaankii ugu firfircoonaa waa xildhibaankii beeshiisa gacanta ku haystay waxaannu leenahay xildhibaan ku soo dhowow
xisbiga wadani waa xisbi la wada leeyahay waa xisbi kii u horreeyey iyo kii maanta ku soo biirayba loo wada siman yahay gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhowow baanu leenahay xildhibaanka waxaa filayaa in xildhibaanku wax badan ku soo kordhin doono xisbiga wadani insha allahu haddii ilaahay idhaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu